ninkan waxaa la yidhahdaa Samatar Faarax Migaag. Samatar oo su'aalan ku weydiinaysaa. soo dhawo Horta subax wanaagsan. soo xanaasta halka Samatar waa ninka odayga ah. inta ugu faraha badan imikadan laftigeeda bisad yar baa dhinacana taagan. Samatar horta muddo intee leeg ayaad bisadahan ku hawlanayd oo aad muxuu ahaayey wixii ilaahay kaaga qoraysiinaysa. لا سكاري سنة موضوع 19 sano wada soo qaadaysa markaa ma bisado kaliya uga بيجي eeyda goormay kugu dhalatay markaa adigu inaad isku hawsho هقول لك markii aan dadku inay wax inay dibdaamiyeen mooyaane aan waxba tarin xayawaankii la noolaa ayaan la ka qaatay ku dhaweyd waxaad iga sheekeynaysaa maalinaad ka habsantay oo muxuu ahaayey qadarna kugu dhacay maalinta ka hor maanta صح هي waxaad tii wajaale maalintaas wajaalaan tagay wajaale aan jooga ayaa arkay dhow 9kii subaxnimo arkana wajaale joogay 10kii baa way dibato markaa iyagana waxa siin jiray 12 koox way dibato markaasaan soo hadlay la soo hadlay dadkii baa halkaad ku siinaysaa wargiisa way qof waliba iga qawaay telefoonkii way markii dambe waxa dhacday inaan anigu si hadoo soo bax way خاطر كان يلا يوير حنبي مركا قاري عصبون نوع يقدم بيان وذا أو يعني وانا هي قاري حياتك كانت عين كان قريتو بيان تلي سيرتوس بها وحبوا قي وحيران برد باقي صباحي هو بيتونك حبك راح نسين الساعة كجارسي والله بيتونك قبيلي مركز ساد شو قصة هالك مرض كلامك سمعنا ما. سهل وتكسر دقيقة. سلام يا ها. مدو لبرتي سوي تاجيبه. واي. وتكسر. ها. دلوقتي قاري ويسلكيته ولا بتشر. واي. ويسلكيته ودلوقتي. baabuurtii iyo wixii dad socotay halkii marita waxa ma noqon way ma sha Allah gaarigu baa dibato marka gees boo gaarigu habir baa mu ahayne waxa loo dadka la yaabeen gaarigu dhug taayo gaalkii diisanto gees baa birtu wala toosiya laakiin geeska daba toosiya saas oo marka ala kulli xaal waanimi marka nimi dibato sadiyo mid waliba halkeedii taagan waxna kuma soo gaarin xalan soo gaarin gaarigana waxa dusha sare mooyaan waxba wasqab noqon ma sha Allah muraad yar ma jabtay way على كل حال ما انت صامت ان حبسامي هي ما كسو غارسيسay waan ka soo gaarsiin oo soo qaaday haye halkay tubnaa markaa ila cadda ila iyo xisbiga inta ila bariga ila iyo xisbiga xaraawil ban sii jiray way markaa inta soo yar gaabiyo ila inta cadda horteedii inta ay isugu yimaadeen ila inta laba afartaniyo laga baxaynba way Samatar dadka qaar baan arinta dhaadanaynba oo inta badan laga yaabo inay ama iidi dilaan ama bisadaha dilaan oo ka waran iyaga laftigooda fariin baad u jeedin kartaa waxaan runtii leeyahay dadka xayawaanku noolooyay way meesha xayawaanku ku dhirgay ayaa ibn aadamku ku dhirgay oo fiirso caalamka meel kasto xayawaanka la daryeelo ilaahayna ma daryeela way marka si ilaahay idin daryeelo xayawaanka la daryeelaade way taas waa fariintii mararka qaar kood waxaad ugu lahayd haddii aan la joogay madaxweynaha Soomaaliland horta ilaa imisaad siisaa alaabta sanbabkan iyo waxaan lahayd kugu soo dhiibay وخويتونكي بك haddaad madaxweynaha la joogto ka hor waan ka soo dhaqaaqay iyaga dartood ma sha Allah wad mahadsantahay Samatar Faarax Migaag waa muxsiniinta ama dadka aad iyo aad ugu hawlan in muxuu ahaayay uu ka qayb qaato quudinta bisadaha iyo eeyda idinkana waxa la idinka baahan yahay inaad fariintaas sideeda u qaadataan